wasiir Bayle waxaan u sheegayaa ku soo dhawow shaqadan laakiin waxaan ku sheegayaa shilin walba oo soo galay in lagu la xisaabtami doono ma aqbali doono hal shilin oo ay leedahay dawladda Soomaaliyeed inuu macna darro ku baxo ma ahan inaan dacwo idin qabno ama aan khalad fahamsanahay laakiin waxaa muhiima waddankani inuu isku filnaado si aan isugu filnaano marka tallaabada ugu horeyso aan qaadi doono waxay tahay wax yar oo na soo gala horta inaan u maareyno sida ugu wanaagsan oo loo maareyn karo ammaanada yar oo naloo dhiibo marka ugu horeyso inaan ammaanadaas u ilaalino sida ugu wanaagsan oo loo ilaalin karo haddii wasiir Bayle uu shaqadiisa u gudan waayo sida loogu talagalay waa inay jirtaa meel looga dacwoon karo haddii ra'iisul wasaaruhu shaqadiisa gudan waayana waa inay jirtaa meel looga dacwoon karo waa in la ogaadaa wasiirka iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waa shaqaale u shaqeeya shacabka Soomaaliyeedna waa inay ogaadaan qofka ku shaqeeya inaad shaqada ka ceerin karto haddii uu waajibkiisa ka soo bixi waayo